haddii aynu ka fikirno sida Beijing qudheeda ay u fikirayso oo ay u doonayso inay ula falgasho xasaradaha gobolka iyo dhaqdhaqaaqa xuduudda ka soo horjeeda marka waa maxay qaar ka mid ah xulashooyinka dhexdhexaad ee Beijing ee Taiwan ma laga yaabaa in tallaabo laga qaado mid ka mid ah jasiiradaha xeebaha Taiwan ama faragelinta maraakiibta iyo diyaaradaha u socda ama ka imaanaya xitaa Kinmen ama Matsu ama xitaa jasiiradaha Ratas mise laga yaabaa inay ku qasbaan Taiwan iyo ama dhoofinta dalalka kale ee badda koonfurta Shiinaha inay u gudbiyaan la socodka Shiinaha kormeerka iyo ansixinta ka hor intaysan gelin badda koonfurta Shiinaha hogaamiyaha Shiinaha shaki kuma jiro in dadkiisu ay siiyeen fursado badan oo hogaamineed taasoo ugu dambeyn wax weyn ka bedelaysa aragtida dalka iyo dadkaas ay ka qabaan hogaankooda waxayna ku dari karaan xisaabaadkooda in haddii ay dhaqdhaqaaqooda u sameeyaan si degdeg ah oo ay isku dayaan inay wax badan qabtaan waxay ku qasbi kartaa Mareykanka dagaal taasi waxa hogaamin doona ciidamada xoreynta dadka ee PLA sidoo kale waxay halis muuqda gelinaysaa hantida Shiinaha ee dibadda waxaa jira weydiimo fara badan iyo isbarbardhigyo tusaalayaashooda ay quman yihiin tusaale ciidamada Mareykanku waxa laga yaabaa inay ku adkaato haddii dagaalku ka dhaco agagaarka Taiwan laakiin waxay leeyihiin faa'iido taas ka baxsan waxayna dhexgeli karaan gaar ahaan la shaqaynta la hawlgalayaasha qadadka isgaarsiinta ee Shiinaha iyo saliidda muhiimka ah cuntada iyo ganacsiga ee qulqulaya iyaga PLA weli ma aysan helin awoodaha saadaasha tamarta caalamiga ah sida muuqata safarka kale ee Beijing ayaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu iska ilaaliyo kicinta waa doorashada nuclearka sida muuqata wali way u nugushahay in laga gooyo nidaamka dollarka Mareykanka ama gabi ahaanba la joojiyo soo dejinta tiknoolajiyada siday u badan tahay inay dhici doonto haddii ay dhacdo duulaan buuxa oo Taiwan ah waxaas oo dhan in la yiraahdo Beijing waxa laga yaabaa inay u janjeerto inay sugto in muddo ah oo ay u ogolaato dadaalkeeda dagaal siyaasadeed oo ay dhalaaliso iska caabin suurtagal ah dagaalka siyaasadeed macnihiisu waa isticmaalka dhaqaalaha diblomaasiyadda siyaasadda cilmi nafsiga iyo cadaadiska militariga ee faca weyn ee Shiinaha si loo sameeyo saameyn qaran waxaa weli socda dagaal siyaasadeed si fiican ayay ugu shaqaynaysaa Beijing ilaa hadda Shiinuhu wuxuu isticmaalay dagaal siyaasadeed si uu u soo galo dhammaan Pacifiga oo dhan Solomon Island Tonga iyo sidoo kale Kiribati si loo magacaabo dhowr koonfur bari Aasiyana waxay qarka u saaran tahay qamaarkeeda iyada oo wadamada qaarkood ay horeba u doorteen Shiinaha Cambodia tusaale ahaan waxay u ogolaanaysaa PRC inay dhisto saldhig cusub oo badda ah marka laga reebo inay faa'iido u leeyihiin naftooda tani waxay u ogolaanaysaa Shiinaha in ay sii kordhayso go'doominta Taiwan dhaqaale ahaan diblomaasiyad ahaan siyaasad ahaan maskaxiyan iyo ciidan ahaanba Shiinuhu wuxuu dhawaan u soo diray danjire naxariis badan oo ka dabacsan Australia oo sida muuqata durba xisbiga shaqaalaha Australia waxa uu ku guuleystay doorashada sanadkan xitaa Australia ayaa laga yaabaa inay u jilicsanaato Shiinaha maadaama ahdaafta Beijing ay ka mid ahayd in siyaasadda waddanka uu ku guuleysto hogaamintiisa xisbiga shaqaalaha ee Australia PRC waxay xitaa xiraysaa Latin America Amerikada dhexe iyo sidoo kale Kariibiyaanka guud ahaan gobolka oo dhan hogaamiyaasha Shiinaha ee taageera ayaa ku guuleysta doorashooyinka iyo wadamo kale ayaa u wareegaya xerada Shiinaha Afrikana aad ayay ugu fiican tahay dhinaca Beijing sidoo kale saameynta isugeynta malaha kaliya dagaal siyaasadeed oo laga guuleysto Taiwan laakiin ka dhanka bartilmaameedka ugu weyn ee Shiinaha Mareykanka Beijing waxay shiday dab aad u yar oo mashquulin kara oo ka adkaan kara jawaabta Mareykanka ugu dambeyntiina waxay meesha ka saari kartaa iska caabinta Mareykanka